jabhadda xuutiyiinta oo Mareykanku mar kale dhawaan ku daray liiska ururada argagixisada waxay degaan buuraleyda waqooyiga dalkaasi gaar ahaan gobolka Sacda oo xuduud la leh dalka Saudi Arabia waa muslimiin haysta madhabta Shiicada israahaana waxay ka soo jeedaan qabiilka Sayidiga sida uu sharaxayo Dr. Xasan Basri oo shahaadada PhD-ga ku haysta culuumta xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda taariikhda xuutiga Yemen markiisii hore wuxuu ku bilowday gobolkan la dhaho Sacda ayay ka asaasmeen oo Hussein Badruddin al-Houthi ninka la oran jiray ayaa 92 bilaabay magacanna muusan jirin waxa jiray magac la oran jiray Shabaab al-Mu'min kadib dhalinyaro marka mucaarad ku ah dawladda oo marka dawladuna ay marka qaar xirto laakiin xasarad ka casan aysan jirin ayay ku qaateen noloshii ilaa 97 oo markaa 94 qudhiisa Hussein Badruddin al-Houthi xisbi ayuu dhisay la oran jiray Xisbul Xaq oo markaa Shabaab al-Mu'min way ka soo baxeen siyaasadii dalka Yemen lagu hogaaminayay inay wax ka qabtaan ayay damceen qudhiisu wuxuu noqday xibin kamid ah baarlamaanka Yemen markaa cod ay ku soo baxay gobolka Sacda ayuu inta badan u hadli jiray oo nimanka degan saydiyiinta la yiraahdo jagaha la siiyo oo lagu daro dawladda oo dawladda dham ha hogaamiyaan waayo waa niman haashimiyiina oo aalubayda oo nabi maxamed calayhi salaam ka soo jeeda shardigaas saydiga ayaana inta badan ku caan baxay laakiin nidaamka siyaasadda way ka diideen gobolkii Sacda ayagu wali xaaladdu ay ku jiran tahay saydiyiintii reer Houthi ayaa Ali Abdullah Saalax waxa uu geeyay shirkado ka yimid dhinaca Sacuudiga oo markaa culimadan madhabkan wahabiyada ayaa la geeyay oo salafiga halkaana dabkii iyo basiinkii ayaa taraq lagu daaray fikradii markaa reer ay wateen saydiyiintii Shabaab al-Mu'min iyo ururka al-Xaq la oran jiray way heshiin waayeen inay markaa ka saaraan magaalada ay degnaayeen wahabiyadii bay noqotay dagaalkii lagu qaaday markaa kacdoonkii lagu qaaday dawladda Ali Abdullah Saalax jaamacadda Sana'a xaruntu ahayd ayay Sana'a galeen ayagoo markaa dhalinyaro kacdoona iska dhigaya kacdoonkii habka u socday habaan ahayn ayay u leexiyeen oo ururkii shiiciga ahaa oo saydiga ahaa oo ka yimid Sacda oo magaalada gadaal ka soo galay ayaa majaraha u qabtay kacdoonkii Yemen inkastoo qabiilka imika ku abtirsada jabhadda xuutiyiintu ay weligoodba u abaabulnaayeen inay la dagaalamaan dawladaha ay u arkaan inay nidaamka ay doonayaan baalmareen haddana waxay siyaasad ahaan madaxa la soo kaceen wixii ka dambeeyay markii Ali Abdullah Saalax uu Yemanta waqooyi qabsaday 12 sanadood kadibna ay midoobeen Yemantii waqooyi iyo tii koonfureed sidaana ay ku samaysantay dawladda Yemen xukunkii Ali Abdullah Saalaxna uu soo idlaaday sanadkii 2011 xilligii uu bilowday kacdoonkii dadweyne ee wadamada Carabta qaarkood ka curtay kadibna xiisadii ka aloosantay dalka Yemen waxay keentay bilowga dagaal sokeeye oo qarxay sanadkii 2014 xuutiyiinta oo taageero ka helaya dalka Iiraan iyo Shiicada kale ee wadamada ku dhow qaar kamida waxay la soo baxeen awood ciidan oo keentay inay qabsadaan magaalooyin badan oo kamida dalka Yemen sidaana uu dalka kaga baxsaday madaxweynihii dalka Yemen Cabdirabbi Mansuur al-Haadi oo magangeliyo ka helay dalka Sacuudiga isbahaysiga wadamada Carabta qaarkood oo Sacuudigu hogaaminayaana waxay bilaabeen duulaano toos ah oo ka dhana jabhadda xuutiyiinta ee dalkaasi Yemen ka dagaalamaya dagaalkaasi muddada dheer qaatayna wuxuu galaaftay nolosha malaayiin qof oo Yemeniyiin oo iskugu jira kuwa dhintay kuwa qaxay iyo kuwa barakacay oo waayay biyo dawo cunto isla markaana u liita nafaqo darro waxaanay u badan yihiin caruur iyo dumar iyo dad jilicsan guud ahaan dalka Yemen ayaa lagu soo waramayaa inay burbureen adeegyadii aasaasiga ah ee bulshadu ku tiirsanayd inkastoo uu jiro gargaar toos ah oo ay bixinayaan qaramada midoobay Mareykanka iyo wadamo kale haddana wax ka soo reynay kama muuqato xaaladda wadankaasi waa kan mar kale Dr. Xasan Basri 10 sano kadib xaaladda Yemen waxay u muuqataa xaalad kala dalsanaan dagaal sokeeye iyo baahi bini'aadanimo oo dhinac kasta ah soo wajahday rajadii oo god mugdi ah madaxa la sii galaysa xaaladda hay'adihii dawliga ah oo wax bixin lahaana ay ka sii yaraanayaan Yemen
marka kalora iyo cudurkii la oran jiray corona ayaa faraba-an ku hayay yamaniyiinta siyaasad ahaan dad israacsan ma noqon kacdoon kadib jabhado dagaalamaya oo kala taageersan imaaraadka iyo sacuudiga marna sanca dhinaca xuutiga iyo dhinaca koonfurta dagaalka xadka yeman iyo sacuudiga markaa xuutiga iyo dhex maray sacuudiyaanka guud ahaan marka 10 sano la fiiliyo xaaladda yeman dhinac kasta waxay ka gelaysay xaalad mugdi ah markii uu meesha ka baxay nidaamkii dawladeed iyo kala dambeyntii dalkaasi Yemen xuutiyiintu waxay noqdeen awood hubaysan oo khatar ku ah wadamada khaliijka iyo kuwa reer galbeedka iyo guud ahaanba maraakiibta ganacsiga ee sida joogtada iskaga goosho marinbiyoodka Baabal Mandab ee badda cas waxaanay qaadeen weeraro isdaba jooga oo ay la beegsanayaan maraakiib meelo kala duwan u socday dalal kala duwanna laga leeyahay waxaanay dhaqdhaqaaqyadooda sii labanlaabeen markii uu bilowday dagaalka haatan u dhaxeeya Israa'iil iyo Xamaas waxaa cirka isku shareeray lacagaha caymiska ah ee laga qaadayo maraakiibta marankaasi adeegsanaya waxaa kor u kacay lacagaha loo qoondeynaya ammaanka maraakiibta iyo shixnadaha saaran waxaana halis galay ganacsigii u kala socday wadamada ku yaala qaaradaha Yurub, Asia, Afrika iyo waliba bariga dhexe waxaanay taasi keentay in qiimaha bucshiraduhu kor u kacaan in ka badan 100% intii ay hore u ahaayeen waxaana soo ifbaxday in khatarta xuutiyiintu ay noqotay mid caalami ah Mareykanka oo xuutiyiinta hore uga saaray liiska ururada argagixisada caalamiga ah ee loo yaqaano Foreign Terrorist Organization loona soo gaabiyo FTO ayaa dhawaan mar kale ku dhawaaqay inay yihiin urur argagixiso oo khatar ku ah danaha Mareykanka ee dibadda Dr. Xasan Basri ayaan weydiiyay waxay ka dhigan tahay arintaasi qanqabateynta Mareykanku oo mar horena soo saaray gadaalna haddana ku soo celiyay ururkan xuutiga wuxuu kaga golnayahay waa maree ururku inuu yahay nidaam argagixisa marka liiska lagu daray waxa dhacaysa in hadiiba dhaqaalo iyo shirkado ay jiraan Mareykanka jooga ay dhaqaalo u soo diri lahaayeen dalka Yemen gaar ahaan ururka xuutiga ayagoo markaa gacan ku siinaya qof ama group ama company waxa dhici karta in laga joojiyo isla markaana ganax lacageed la saaro ruuxaas marka taamarka waxay keenaysaa marka dhaqaalihii dibadda ka imaan lahaa maadaama ururka laga dhigay urur argagixiso caalami ah in marka la joojiyo hay'adaha dawliga ah ee gudaha Yemen gargaarka bixiya hadii lacala kuwa kamid ah ay maagaana xuutiga wax u tuura ayagana waxa qabanaya nidaamkan lagu daray argagixisada caalamiga ururka xuuti waxa kale oo la isweydiinaya xagga ay ka keenaan awoodda military ee xoogan ee ilaa hadda ku dagaalamayaan xuutiyiintu guud ahaan dawladdii Ali Abdullah Salah oo dawlad xoog lahayd ciidan iyo madaafiic iyo sawaariq iyo diyaarado lahayd ayay si fudud ula wareegeen marka halka horta hubkii dawladda Yemen wali gacanta ugu jira waxa kale oo awooddaas ku daraya marka la oran karo awood kale ballaaran oo teknolojiyada ah oo casriga ah dhinaca diyaaradaha loo yaqaan droneska ama sawaariiqda loo yaqaan balastiga iyo cruise-ka ay ka heleen khubaro ka timid dhinaca Iran marka waa hub iyo diyaarado drones ah oo fudud oo xitaa sirdoonka Mareykanka iyo galbeedka meelaha ay joogaan ay garan waayeen waa diyaarad dronesku nooca markaad fiirisid waxa weeye waa jingad yar marka qaab khafiif ah u samaysan waxa ay qaadaysan aad u yar yihiin marka dhaqaalahaana waa xajmiyahaana way yar tahay dhaqaalahaana way yar tahay marka si fudud baa meel lagu xareyn karaa hubkaas iyo diyaaradahaas iyo sawaariiqdaas gudaha lagu rakibay ilaa marka waxay gaari karaan marka Baabul Mandab iyo badda cas ilaa Israa'iil gobolka Israa'iil ku yaala ay duqeeyeen hadda Samson ka hor haddana awooddaas aan ka hadalnay tii Yemen waxa lagu dari karaa awooddan Iran haddana hadda waxaa soo baxayba in ay la heshiiyeen Chinaha iyo Ruushka oo hub casri ah oo markaa sawaariiq aad loo amaanay waxa weeye tayo leh in Ruushka markaa si farsamaysan oo qarsoodi ah markaa xuutiga u siiyay taa hadii marka dhacdo marka iyaguna dabcan sida la sheegay waxay la heshiiyeen heshiiska kamid ahaa qodobadiisa in maraakiibta Chinaha iyo Ruushka si fudud ay ku mari karaan Baabul Mandab
wadamada caalamka oo kasoo kabanaya saameyntii xanuunkii coronavirus oo uu u raacay dagaalka saameynta ballaaran yeeshay ee u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine ayuu ku soo biiray dagaalka boqolaalka kun oo qof ay ku dhinteen malaayiintu ku barakacday isla markaana ay dad badani u dayacan yihiin ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Xamaas iyo sidoo kale jidgooyooyinka Xuutiyiinta ee badda cas waana arrin ay aad isha ugu hayaan siyaasiyiinta dhaqaalayahanka iyo mufakiriinta caalamka oo daraasaynaya saameynta arrimahaasi oo isbiirsaday ay ku keeni karaan dunida iyo sidii looga sii tabaabulshaysan lahaa caqabadaha ka dhalan doona